wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan waa Bulsho Sports TV markan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada ay hayaan waxaa kamid ah Barcelona ayaa ku sii dhawaanaysa Memphis Depay Hakim Ziyech ayaa diyaar u ah inuu ka tago Chelsea xagaagan Coman ayaa doonaya inuu helo mushaar fara badan intaas waxaan qodobadii warkaatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan Barcelona ayaa ku sii dhawaanaysa Memphis Depay Barcelona ayaa kalsooni ku qabtay inay dhameystirtay heshiiska xorta ah ee Memphis Depay usbuuca soo socda sida laga soo xigtay Mundo Deportivo wadahadallada u dhexeeya kooxda reer Spain iyo weeraryahanka ee reer Holland oo qandaraaskiisa uu kula joogo kooxda Lyon dhamaadka bishan ayaa ku dhow inay gaarayaan heshiiska madambeys ah Barca ayaa ka walwalsan si kastaba ha ahaatee daqiiqad kasta oo ugu dambeysay iyagoo si isku mid ah ugu kalsoon saxiixa Wijnaldum kahor inta uusan xilli dambe u dhaqaaqin Paris Saint-Germain balse xidiga ayaa rajo ka qaba inuu ku biiro kooxda ku aaminaya ee Barcelona Hakim Ziyech ayaa diyaar u ah inuu ka tago Chelsea xagaagan warbixintani waxa eegaya Maxamed Ibrahim Bibaye ciidanka kooxda kubadda cagta Chelsea Hakim Ziyech ayaa guud ahaanba xusayay inuu isaga dhaqaaqi doono gigida kooxda kubadda cagta Chelsea Stamford Bridge kadib markii laacibku uu xusay inuusan ku qanacsanin habmaamulka tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea Thomas Tuchel isbeddelkan ayaa wuxuu yimid kadib markii laacibkani uusan ka soo dhex muuqanin finalkii tartanka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League ay xil ciyaareedkani ku guuleysatay kooxda kubadda cagta Chelsea taasi uu banaanka uu ka ahaa laacibkani Hakim Ziyech hogaamiye hore kooxda kubadda cagta Ajax ayaa diidan guud ahaanba inuu ku sii nagaado xil ciyaareedka soo socda gegada Stamford Bridge jirada Calcio Mercato ayaana markaa xusaysa in waqtigan xaadirka laacibkani uu dalabyo muhiim ah ka soo gaaraya qaar kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka dalkaasi Talyaaniga kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ogol inay qasaaro xoogan dhaxda ka gasho kadib markii ay xuseen in Hakim Ziyech ay ku iibin doonaan dulcageed gaaraya 35 milyan oo lacagta Euro-ga ayadoo kooxda kubadda cagta ee Chelsea laacibkani qiimo ahaan ay kula soo wareegtay adduun dhan 44 milyan Coman ayaa doonaya inuu helo mushaar fara badan qodobkaasi waxa eegaysa Qamar Maxamed Cumar Coman ayaa doonaya mushaar la mid ah kan Robert Lewandowski iyadoo wadahadallada ay ku sii socdaan heshiis cusub oo uu kula sii joogayo Bayern Munich sida ay qortay Marca Coman wuxuu haystaa 2 sano qandaraaskiisa haatan laakiin wuxuu wali ku jiraa wadahadallo heshiis cusub ah oo uu kula sii joogayo kooxda reer Jarmal saraakiisha Bayern ayaa ka cagajiidaya inay u sii hoggaansamaan dalabaadka Coman inkastoo aysan doonaynin inay sidoo kale iibiyaan weeraryahanka reer Faransa haddii aysan helin dalab weyn Arsenal Everton ayaa heegan la geliyay dalabka Ramsey qodobkaasi waxa eegay Cabdirasaaq Cabdi Ibrahim ciyaaryahanka qadka dhexe ee Juventus Aaron Ramsey ayaa heegan geliyay kooxaha Premier League laacibkan reer Wales ka hor ololaha Euro 2020 Ramsey wuxuu qirtay labadii sano ee uu la joogay Juventus inay ahaayeen jahwareer xidigii hore Arsenal ayaa la xiriirinayaa inuu ku laaban doono garoonka Emirates halka Everton sidoo kale ay sheegeen in ay doonayaan waxaana rabaa meel aan mar kale wanaaga ku dareemo heshiiska Ramsey ee Juventus waxa uu dhacayaa 2023 Leicester ayaa dalab u diraysa Patson Daka qodobkaasi waxa eegay Maxamed Ibrahim Bibaye kooxda kubadda cagta Leicester City ayaa dhinaca kale xusaysa inay xoojin doonaan dalabka weeraryahanka kooxda Salzburg ee Patson Daka ciyaaryahankan ayaana markaa lagu tirinaya weeraryahanada waqtigan xaadirka sida weyn kaga dhex muuqanaya qaaradda Yurub laacibkani ayaa 29 gool suurtageliyay 36 kulan oo markaa u saftay kooxdiisa Salzburg ee ka dhisan dalkaasi Austria waqtigan xaadirka 22 jirkaasi ayaana markaa lagu qiimeynaya xidigaha ugu hadalhaynta badan iyadoo la doonayo in ciyaaryahankani uu markaa ka garab ciyaaro xidiga Jamie Vardy isbedel walba kooxda kubadda cagta Leicester City waxay doonaysaa 5 kooxood oo toddobaadkii ugu dambeeyay dalabyo kala duwan ka gudbiya xidigani Patson Daka inay markaa kala soo wareegi doonaan kooxda uu ka tirsan yahay RB Salzburg Manchester United ayaa xiriir la weeraryahanka Atletico Madrid ee Saul ciyaaryahanka qadka dhexe ayaa la filayaa inuu ka dhaqaaqo kooxdiisa xagaagan kadib markii uu lumiyay booskiisa dooqa koowaad ee xilli ciyaareedkii hore wargeyska Mundo Deportivo ayaa sheegaya inuu Saul la heli karo kaliya 2 dooqad ayaa xiisaha ay u qabaan ciyaaryahanka uu muujiyeen kuwaas oo kala ah Juventus iyo Manchester United wararka qaarkood ayaa cadeynaya in xidigan uu doonayo inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ka tagi doono kooxdiisa Atletico Madrid waliba dhamaadka bishan Milan ayaa ogolaatay heshiiska Tonali qodobkaasi waxa eegay Cabdirasaaq Cabdi Ibrahim
AC Milan ayaa heshiis dhimis la gashay kooxda Brescia si ay ula wareegto Sandro Tonali oo ay si rasmi ah ugu wareegtay sida ay wariyeen Calcio Mercato. heshiiska amaahda ee bilowga ah waxa ay Milan ugu dhigtay 1 milyan iyadoo ikhtiyaar u leh inay u dhaqaaqdo mid joogto ah oo gaaraya 15 milyan dheeri ah iyo 10 milyan oo guna ah. si kastaba ha noqotee waxay ku guuleysteen inay kala xaajoodaan qiimo dhimista 10 milyan oo gani heshiiska asalka ah. Sissoko ciyaartooyda Spurs waxay jeclaayeen Pochettino. ciyaaryahanka qadka dhexe Tottenham Musa Sissoko ayaa ka hadlay sida uu jecel yahay tababaraha kooxda PSG Mauricio Pochettino. Sissoko iyo Pochettino ayaa isla gaaray finalka Champions League markii uu macalinka reer Argentina hogaaminayay Tottenham. Sissoko ayaa u sheegay warbaahinta waxa uu jecel yahay isaga ayaa ah inuu heli karo 11 laakiin wuxuu ixtiraamayaa dhamaadka ciyaartooyda. qof waliba wuxuu dareemayaa inuu shaqada ku lug leeyahay. Burnley ayaa u dhaqaaqday daafaca kooxda Inter Milan ee Ashley Young. qodobkaasi waxaa eegay Maxamed Ibrahim Biwaye. kooxda kubadda cagta Burnley ee ka dhisan horyaalka Premier League ayaa xusaysa inay la soo wareegi doonaan xidigii hore ee kooxda Manchester United ee Ashley Young. The Mirror ayaa ku dhawaaqaysa in maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Burnley waqtigan xaadirka ay diyaar u yihiin inay xoojiyaan damacoodii weynaa ee ku aadan xidiga Ashley Young qaabka ay dib ugu soo celin lahaayeen horyaalka wadankaas Ingiriiska. laakiin shakhsiyan balaacibkan ka tirsan kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa ku faraxsan inuu isbedel xoogan marka uu ku soo rogo noloshiisa isagoona aad u xiiseynaya kulaabashada horyaalka Premier League. toddobaadkii ugu dambeeyay Ashley Young ayaa xusay in uu ku qanacsan yahay kulaabashada horyaalka wadankaas Ingiriiska laakiin Burnley ayaa markaa la xusayaa in 35 jirkani Ashley Young ay diyaar u yihiin inay u gacan geliyaan hal sano oo heshiisa oo sidoo kalena la siin karo 12 bilood. waxaana waqtigan xaadirka ay doonaysaa kooxda Burnley inay ku soo guuleysan karto dooqeeda Ashley Young. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa wararka ciyaaraha Bulsha Sports TV iyo aniga Munac Ismaaciil waxa idin kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo.